waxaynu idla wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo guul weyn ka gaaray xaaladii magaalada Baydhabo ka tagneyd yaa loo xiray kursiga madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maxayse tahay tallaabada markaas lagu qanciyay dhinaca kale musharaxiintii mucaaradka ahaa ee iyagana ku sugnaa magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed goorme ayaa la qaban doonaa kursiga madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maxaa maanta dhacay oo aadan ogeyn xogaa soo dhameystiran iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha Afraad ee Abriil ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa la soo gabagabeeyay ismari waagii ka taagnaa maalmihii ugu dambeeyay magaaladaasi kaasi oo la xiriiray kursiga madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay doonayeen siyaasiyiin fara badan kuwaas oo ku sugnaa magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed kursigan ayaana dadka sida weyn isugu loolamay isuguna haystay waxaa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Eelay iyo mas'uuliyiin kale oo iyagana ku sugan magaalada Baydhabo oo dhammaantood markaas wada sharaxnaa kursiga madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kursigan ayaana khilaafkiisa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka jiray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed golaha wasiirada ee ka tirsan xukuumadda iyo Aadan Madoobe ayaa isku haystay kursigan golaha wasiirada waxay dhammaantood ay markaas wada diidanayeen in Aadan Madoobe uu markaas uu noqdo cid loo xulanayo musharaxa kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halka markaas wasiiradu ay iyaga markaas ay diidanayeen kulamo isdaba joog ah iyo ballanqaadyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhaqaale fara badan oo lagu bixiyay kursigan ayaa ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in markaas xal rasmi ah laga gaaro khilaafaadkii ka dhex taagnaa xubnaha mucaaradka ahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe inta ugu badan dooda waxa ay markaas ay ka jirtay cid loo xulanayo kursigan ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xubnahan kulamo iyo sidoo kale saacado isdaba joog ah oo uu magaalada Baydhabo uu kula lahaa ugu dambeyntii waxa uu markaas uu xal rasmi ah ka gaaray arintan waxaana cid markaas musharaxa noqonayso laga dhigay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe kaasoo isaga noqon doona maalmo kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida markaas uu qorsho yahay iyo heshiiska kama dambaysta ay gaareen xubnaha markaas golaha wasiirada ah iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo isagana markaas in dhawaalaba markaas si weyn u doonayay in uu noqdo musharaxa kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa isaga ugu dambeyntii waxa lagu qanciyay in uu noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maalmo kadib ayayna sidoo kale doorashadiisu ay ka dhici doontaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu markaas uu qorsho yahay Aadan Madoobe marka uu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac isagana waxa uu sidoo kale uu noqon doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya inkastoo markaas kursi hore xildhibaan ugu fadhiyay loo boobay sida la tilmaamay taasoo iyadana ah mid markaas si weyn hadal hayn ugu dhaxdhalisay baraha bulshada iyadoo sidoo kale xildhibaankii kursigaas ku fadhiyay lagu magacaabayay xildhibaan Subagle oo si toos ah markaas u cadeeyay in kursigiisi isagoo nool la boobay isla markaana ay dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay waxaana uu intaas ku daray in uusan marnaba ka aqbalaynin tallaabada dowladda Soomaaliya ay qaaday Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac maalmo kadib waxa uu noqon doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya heshiiskan waxa uu yahay kii ugu dambeeyay oo ay si wadajir ah u wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiye Aadan Madoobe madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale wasiir Jaamac
dhinaca kalena wasiirada iyagana ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa loo ballan qaaday dhaqaalo iyo sidoo kale xilal kale oo dheeraad ah ay heli doonaan markay ku laabtaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu markaasi u qorsheeyay go'aanka iyo tallaabada ay markaasi qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya waa mid ka duwan kuwii hore waxaana ay markaasi tani ay ka dhigan tahay in ay tahay mid markaasi muujinayso saameynteeda mid haatan muuqato inkastoo musharaxiin kale oo iyagana mucaarad ah sidoo kalena ku kacsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed haddana lagala ma tashanin oo waxa ay noqon doontaa go'aankooda mid aysan marnaba xukuumadda markaasi aysan meel ka soo qaadin doonin iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud musharaxiinta kale iyagana sida weyn u doonayay waxaa ka mid ah musharax Maxamed Aadan Fargeedi oo dhawaan markaasi dowladda hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in kursigaasi aanan cidna loo xirin isla markaana kursigaasi uu noqdo mid furan oo ay musharaxiinta dhammaantood ay ku wada tartamaan waxa uu Fargeedi uu tilmaamay haddii mar dowladdu ay cid kursigaasi u xirto in uu markaasi u qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraad ah isla markaana Koonfur Galbeed ee markaasi u baahnaan doonto badbaadin siyaasiyiin kale ayaa iyagana markaasi jira oo hore markaasi ugu digay arrintan iyagoona sidoo kale dhowr jeer oo kala duwan ku macneeyay tallaabada ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay tahay mid aanan marnaba wanaagsaneyn isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya looga baahnaa in kursigan ay dhaxda ay soo dhigto isla markaana uu noqdo kursi loo wada dhan yahay oo siyaasi ama sidoo kale cid gaar ah aanan marnaba loo xirin taasoo yara meesha markaas ka baxday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagana ku sugan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu si weyn u danaynayaa in uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagana olole ayuu ka bilaabay magaaladaasi laakiin haatan waxay u muuqataa dhammaan ololahaasi oo dhan in ay soo wada gabagaboobeen ammaanka magaalada Baydhabo ayaa waxaa markaas loo diyaariyay ciidamo fara badan oo isugu jira police military iyo sidoo kale nabad sugid dhammaantoodna waxaa lagu wada daadiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo ciidamadan ayaana waxaa lagu wada wargeliyay in ay markaas heegan buuxa ay galaan sugaan amniga guud ee magaalada Baydhabo isla markaana uu noqdo mid amnigiisa ay hagaagsan tahay inta doorashooyinka ay markaas ay socdaan tallaabo kasta oo lagu carqaladeynayo amniga guud ee magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayayna sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka digtay iyadoona sidoo kale arrintan ay muujinayso in saraakiisha si weyn markaas loola dardaarmay waxaa sidoo kale la tilmaamay cidii hub sharci darro ku dhex wadato gudaha magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed in la xiri doono isla markaana tallaabo laga qaadi doono gabagabadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ugu dambeyn uu markaas xal rasmi ah uu ka gaaray arrintii magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed maalinimada berrito ah waxa uu dib ugu laaban doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoona sidoo kale guul taariikhi ka gaaray arrintii magaalada Baydhabo iyo ismarwaagii muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa magaaladaasi waxaana sidoo kale u muuqataa in doorasho la aadayo isla markaana musharaxa xisbiga JSB uu yahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe haddaba waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa